السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Gaylan Media maanta waxa marti noo ah oo aan waraysi la yeelanayna Cabdi Saciid Muuse oo 5 sano ee la soo dhaafay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya ka soo qabtay 3 xil oo kala duwan waxa uu soo noqday la taliyaha amniga qaranka agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaanu Cabdi Saciid waraysigan la yeelan doonaa oo ka koobnaan doona qaybo kala duwan oo dhammaan ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo shaqadii uu qabanayay 5 sano ee la soo dhaafay intii uu kamid ahaa nidaamka Soomaaliya waxaana uu qusayn doonaa amniga siyaasadda iyo marxaladaha hadda taagan ee amniga Soomaaliya waxaanu iska weydiin doonaa saddexda shaqo ee aanu soo sheegnay waxyaabo kala duwan oo la xiriira oo Cabdi uu goobjoog u ahaa mudan Cabdi Saciid waa kaaga mahad celinayaa waraysigan aad Gaylan Media siiso soo dhawow wadawaa mahadsantahay Gaylan Media oo mahad celinaya 5 sano ee la soo dhaafay waxaad 4 sano ee la soo dhaafay waxaad soo qabatay 3 xil oo kala duwan kuwaas oo saameyn ku lahaa xaaladda siyaasadda amniga ee Soomaaliya dadku waxay aad isku weydiinayaan Cabdi Saciid iyo Farmaajo xagees ka soo raaceen waa mahadsantahay madaxweyne Farmaajo aniga waxaan isbaranay markuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dawladii Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa aniga markaas regionkan ka shaqeynay Horn of Africa waxaan aad isu naqaanay nin la dhaho Abu Karbaale oo markaa chief of staff oo asagaas ka baray ka bacdina Xamar waxaan isku baranay hadana mar kale markuu tartamay 12 aniga markaas hay'ad baan rangareynay madaxka ahaa Norwegian oo meeshan saas isku aranay ka bacdina Nairobi markuu joogay aniga Nairobi waxaan u shaqeynay European Union marka saas bay intii bilowgii ahayd 2017 dhowr shaqo kala duwan ilaa iyo dhamaadka madaxweynaha ayaad la qabatay oo 3 jago kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda la taliyaha amniga qaranka iyo agaasimaha fiila Soomaaliya wax gaar ah oo kale oo si kin xirayay oo aan ahayn aragti aad ka midaysnayn ma jirtay ma aragtida ah in Soomaaliya la helo Soomaaliya madax bannaan dawladeedu madax bannaan tahay sovereignty iyo territorial integrity iyo political independence ay mas'uul ka yihiin dawladdu fikirkaas aan ka midaysnayn laakiin ma jirin wax kale oo suuqin xirayay oo la xiriirtay arrimaha siyaasadda iyo mawaqifta iyo isdhisid ka hor jirtay iyo kamid ah kooxdii la soo ololeysay xilliga doorashada ma kamid ahayn ani markaas hay'adda waxaan u shaqeynay European Union regional political advisor baan Horn of Africa campaignkiisa kama warhayn xataa iyo laakiin waan kulanay dhowr jeer marka Soomaaliya mar walba Soomaaliyan ka shaqeysan jirnay siday loogu baahan yahay inay madaxdeedu ay noqdaan dad madax bannaan oo siyaasadda madax bannaan wadankana ayagu mas'uulka ilaalin kalena sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliya arrimahaas aan ka sheekaysan jiray waxa ay midaysay danta Soomaalida ee madax bannaanida iyo la xiriirto kaliya intii aadan Soomaaliya man waxaad ka shaqaysay midowga Yurub geeska Afrika waxa qaban jirtay waxaan ahaa regional political advisor la taliyaha arrimaha siyaasadda gobolka Horn of Africa dhowr wadan baan maaragtay shaqo ku lahaa Kenya Soomaaliya Ethiopia Uganda Djibouti saas oo kale Uganda adigu 9 wadan baan anagu cover gareynay laakiin anigu 5 wadan baa focuskayga ahaa gaar ahaan arrimaha la xiriira amniga regionka iyo qolyaha jirka migrationka sidoo kale conflictiga Yemen sidoo u saameynaya geeska Afrika iyo maxaa la dhahaa burburka Yemen oo markaa cusbaa iyo burburka siyaasadeed ee Ethiopia ayadana markaas cusbaa arrimahaas ay ku saabsan intii midowga Yurub aad la taliyaha ka ahayd waxa la soo saaray warbixino badan oo la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo geeska Afrikaba
dhammaantood wajiyo kala duwan bay lahaayeen kuwo wanaagsan iyo kuwo xunba inta badanna waxaa la tiriyaa in hay'adaha Soomaaliya saamaynta kule ama ka shaqeeya midowga Yurub aadeen ama reer galbeedka aadeen inay markasta Soomaaliya ka bixiyaan sawir aan saxayn dabcan kooxdaas midowga Yurub ayaa ergey ahayd oo siyaasadda ka shaqeeya amniga waliba la xiriira dagaalka argixisada ribooradaas ka warbixinadaas marka wadan aad maaragta xaaladiisa ka qiimeynaysid qiimeyn waay conflictiga siyaasadda waxaa la dhahaa hadday jirto actoriska waxaasaad ka hadlaysaa badanaana reportyada oo laga qoro Soomaaliya oo macnaha oo annaga aan diyaarin jirnay maaha kuwa ay arki jireen dadka caadiga ah sababtoo ah wasaaradaha arrimaha dibadda ee Europeanka waa loo diyaarin jiray keybeladaasna maaha keybelo oo maaragtay qof walba uu arki karo sababtoo ah Ethiopia kale oo wadan sensitive markaa wax ka qorayo siyaasadeeda dagaal badan baa ka jiray markaas Oromada oo very active ahaa iyo maxaa la dhahaa regime-kii markaa ka jiray oo TPLF ama EPDRF aad isu hayeen saasay u badnayd laakiin Soomaaliya xuseynta Soomaaliya arrimaheeda iyo aniga macnaha qoraaladeyda wax saameyn ku lahaa ma ahayn siyaasadda Soomaaliya sababtoo mission baa jira missionkaas arrimahaas shaqo ku lahaa annaga waxaan ka hadlaynay waxyaalaha regionka saameynta ku leh ee Soomaaliya ka imaanaya sida al-shabaab maxaa la dhahaa burcad badeed hadday jiraan hadday macnaha saameynta Yemen regionka saasay markii aad tagtay xafiiska la taliyaha amniga qaranka aad xafiis dawladeed oo Soomaaliya ay leedahay ayaa kuugu horeeyay Soomaa mise kuugu horeeyay ma horay waa uga shaqeeyay laakiin jaga noocaas markaas kuugu horeeyay in bila ka hor intaadan xafiiska tagin la taliye ka horeeyay ayaa shaqada ka tagay ama resign gareey ama laga qaaday adiga in lagu doorto oo farmaajo adiga oo booskan la taliyaha amniga qaranka u doorto maxaad ku sifaysan kartaa maxaa ku sifaysan kartaa sidee macna maxaa lagu doortay gaara horta hal waa inaa ogaataayo qofku inuu wadankiisa u shaqeeyo waa asaga sharaf iyo karaamo u tahay waa privilege and honor inaa u adeegto dadkaaga macnaha marka shaqo heerkaasna inaa qabato laftigeeda mas'uuliyad weyn oo la taliyaha amniga qaranka aad la talinayso madaxweynihii iyo madaxdii meeshii ugu sarreysay qaranka aad laga rabo inaad talooyin ka siiso siyaasadda amniga qaranka ee dalka hawl fudud maaha maxaa lagu doortay ninkii doortay inaa weydiiso waayo adiga laakiin ma dalban ma dalbanay waxaan ku weydiiyo aan ku laabto intii midowga Yurub u shaqeynaysa soo qaaday wadamo kala duwan oo gobolka inaad saameyn ku lahayd oo siyaasadeeda ka shaqeynaysa waxa kamid ah Ethiopia oo xilligaas ku jirtay xaalad isbedel siyaasadeed oo culus 2018 isbedel ka dhacay kooxda TPLF ayaa talada Ethiopia haysay marar badan waxa lagu tiriyay Cabdi Saciid inuu xiriir aad fiican la lahaa kooxda TPLF waxa ka jira arintaas xiriir shaqo laakiin xiriir oo shakhsiyaad ma jirin ama jacayl ama xiriirkeena shaqadana mar walba wuxuu ahaa xiriir ku salaysan run iyo dhabta qoraaladooda hadda qaarkood waa public oo arki karta dadka ay macnaha aad markay ka hadlayaan oo ay dhahaan ninkaas yani Soomaalinimadu waa ku weyn tahay naga leexiya waa adag yahay waxaas anigu ahaa laakiin xiriir gaar ah oo marar badan oo siyaasiyiinta Soomaaliya xiriir la lahaayeen oo kala duwan ma jirin oo macaamil gaar marna ma jirin 2007 xilliyada ay ciidanka Ethiopia joogeen Soomaaliya mar walba xiriirkeena wuxuu ahaa xiriir ku salaysan run xilligaas laakiin waa la shaqeysay ma la shaqeyn dawladda Soomaaliya xilligaas ergey Kamaal la taliyo Soomaaliya waa la shaqeeyay laakiin ayaga lama shaqeyn laakiin amniga la xiriirta markaan oo ayaga iyo Ethiopia iyo Soomaaliya la isku xiraayay aniga hawl la dhaho JNA waan ka shaqeynay joint needs assessment wax la dhaho
oo ahayd anaan coordinator u ah wasaaradda waxa weeyaan Ethiopia Soomaaliya ka wada shaqeynay mise wasaaradda qorsheynta qaranka waxay diyaarinaysay sidii qorshaha qaraneed ee dhaqaale horumarineed ee waddanka waa marka kaliya ee Soomaaliya mashruuc weyn oo Somaliland ku jirto Puntland ku jirto South Central markaas goboladan koonfur ay ku jiraan oo dad khubaro la keenay qaarkood madax Soomaaliyeed noqdeen waxa kamid ah madaxweynihii ku dambeeyay Puntland Cabdiweli waa kamid ah khubaradii la keenay markaas annaga coordinate gareynayna wasiir Jurila ka ah wasaaradda wasiir qorshahaasna saameyn ma ku lahayn markaas dawladda Ethiopia ciidankeeda Soomaaliya joogeen Baydhabo joogeen Xamar ay soo galeen qorshahaas ee qaranka laga shaqeynayay waxa xiriir markaa idin ma dhexmarin kooxda TPLF Ethiopia markaa talada haysatay macnaha xiriir cadee laakiin xiriir maalin walba ku maraya safiiradoo dhan safiirkii joogay markaas waa sarki jirna isku taal baan deganayn laakiin xiriir gaar oo wada shaqeyn oo amniga la xiriirto Cabsiid iyo TPLF ama Ethiopia markaa dhexmarin ma amni ma ka shaqeyn jirin markaas wama santahay intaasaan kaga gudbo shakhsiyadaada iyo shaqadaada bilowgaada hore waxaan aadayaa amniga qaranka halkan waxa lagu magacaabay December dhameedkeedii waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed marar badan waxay maqnaan la taliyaha amniga qaranka dad badan oo Soomaaliyeed dastuurka dalka iyo nidaamka dawladda dalkana meel uu ku qoran yahay la taliyaha amniga qaranka ma jiro bal waxa dadka Soomaaliyeed u qeexday xagee kaga jira nidaamkan la taliyaha amniga qaranku circle-ka dawladnimada Soomaaliya waa mahadsantahay wuxuu kaga jiraa markii London laga soo noqday hadda xusuusato 2017 waxaa la saxiixay heshiis dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ku saabsan national security architecture wax la dhaho oo madaxweynaha u yahay chair National Security Council baa la dhisay oo madaxweynuhu hogaaminayo madaxweyne dawlad goboleedyadu ku jiraan ka hooseeya waxa ka sii hooseeya xafiisyo amni oo dawlad goboleedyadu leeyihiin kuwaas oo dhan waxa coordinate gareeya marka la taliyaha amniga qaranka isla meesha ku qoran tahay madaxweynaha waxa laga qorshuhu ahaa taladuna ay documentigana ku qoran inuu dekreeto ku soo saaro National Security Council marka madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo saasuu dekreeto ugu soo saaray ay ku cadahay macnaha dadka xubnaha golaha amniga qaranka marka dastuurka kuma qornay marxalad baa keentay dabcan saas waa dastuurka waxyaalo badan oo ku qornayn baa waa fulina shaqo waana lagu qori karaa waa muhiim in lagu qoro hadii la rabo muhiim oo aragtaa jagada Soomaaliyeed ka tahay jaga muhiim ah sababtoo ah waxa fadhidaa xaruntii lagu soo aroorinayay madaxweynaha taladii la siin la taliyaha amniga qaranka shaqa ahaanta uu qabto uu dawladda Soomaaliyeed aan madaxweynaha siiyo sida hadda warbixintaada hore ku xustay qaybaad ka xustay marka laga tago in uu ururiyo macluumaadka dawlad goboleedyada dawladda amniga la xiriira soo dhisan yahay xafiiskan xafiiska horta intaas kaliya ma xafiiska waa meesha laga hogaamiyo siyaasadda amni ilaalinta macnaha madaxweynuhu Soomaaliya ilaaliyaha sovereignty territorial integrity political independence wadanka meesha ugu sarreeyay wax walba la halmaala marka ama la xiriira arrimahaas meeshaas waa meesha taladeedii ilaa madaxweynaha wax diyaarsan inaa u geyso marka de shaqadu waa tiro badan tahay waa ku siin karaa liiska waa hada waqti hayso biya hoos yimaad xafiiska waxaa hoos yimaada hoos imaad sax maaha laakiin wada shaqaynta waxay ka leedahay xafiis walba oo amni sida dekreetadaas ku cad waxa weeyaan dekreetada wax ku jira dawlad goboleedyada ka soo qaad waxay leeyihiin regional security offices wax la xafiis walba oo madaxweynaha oo dawlad goboleed wuxuu leeyahay xafiis amni
xafiiska amni annagu waa cidda coordinate garaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale waa meeshii golihii xukuumadii waaye golaha xukuumadda ayaga fulintii arrimaha marka shaqo joogta naga dhaxaysa fulintii annaga aan fulin lahayn macnaha siyaasadii madaxweynaha meesha laga fulin lahaa waaye wasiirada marka jira wasiir oo dhowr wasiir oo ku qoran ayaguna national security architecture ama dekreetada madaxweynaha ee golaha amniga qaranka dhowrka wasiirka arrimaha dibadda maaliyadda amniga difaaca arrimaha gudaha cadaaladda saas waa lix wasiir waa xafiiska meeqa xogta tusaale ahaan taliyaha nabad sugidda taliyaha ciidanka xoogga taliyaha booliska yaa soo siiya macluumaadka xogta se dhammaan taliyaashaasi waxay awood u leeyihiin madaxweynaha la xiriiraan mise xafiiska amniga inay soo maraan la taliyaha amniga qaranka xogta siiyaan kulligood madaxweynaha way la xiriiraan cid ka celinaysa ma la taliya inuu madaxweynaha la xiriiro laakiin waxaa shaqooyinka la rabo inay socdaan taliyaasha oo la fulinayo annaga waxaan leenahay coordination xafiisku wuxuu leeyahay annaga aanan leenahay xafiisku wuxuu leeyahay coordination role buu leeyahay marka taliyaashu ayagu isma coordinate gareeyaan marka waa in la helaa xafiis laga coordinate gareeyo oo waxyaalaha ka dhaxeeya ayaga ama ay isla qabanayaan waana kuu sheegi doonaa shaqooyin badan oo saasaa jira xafiiskan dowladda shisheeyaa dhaqaalaha siiya sooma maya laakiin waxaa dowladu markaad tiraahdo hay-ado dhan ama dowlado dhe ama hay-ado dhe lacag baa la siiyaa dibadda ka timaada lacagta waana midda u baahan in dowladdu xalliso sababtoo ah xafiisyada ku xiran oo dhan oo la coordinate garaynayo ku sheegay dowlad goboleedyo xafiisyada wasiirada xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiisyadaas oo dhan dad baa ka shaqeeya dadkaas waxay u baahan yihiin mushaar ilaa la taliyaha amniga qaranka ilaa madaxweyne goboleedka la taliyiisa amniga maya la taliyaha amniga qaranka ma la taliyaha amniga qaranka mushaaraadkiisa lacagta lagama bixiyo maya heshiiska annaga aan ku jirnaba awaaba ahba in la taliyaha amniga qaranka markaas kolley dee hadda ma aqaan laakiin annaga madaxweynaha ra'iisul wasaaraha markaas kulli waxaan isku ogeyn in la taliyaha amniga qaranka uusan ka qaadan mushaar hay-ado laakiin waxa dhaqaalaha lagu bixiyaa hay-adaha ku bixiya sidaa xafiisyada lagu bixiyaa dadka la taliyaasha la siiya la taliyaha amniga qaranka $16,000 inuu bayrolkiisu yahay oo dowlad shisheeye ay bixiso oo xafiiskan u qaata ma jirto maya hal adiga markaa joogtaan ka hadlay aniga intaan joogay marna ma jirto in dowlad kale ay ku beegarayso mushaarkaaga ma ogtahay applicationka Payc inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta Payc waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo America hadaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store never ma dhicin maxaa see u tahay markaas la taliya amniga qaran hadday dowladda kale lacag ku siiso laakiin lacagtan la xafiiska la siinayo oo international community ka ama beesha caalamka imaanaysa dowlad ka mid ah bixisa ku reer galbeedka sax la siiyo sida aad sheegtay xafiisyada shaqaala la siiya mushaarka shaqaalahaas la taliya amniga qaran ka mid ah laakiin su'aasha maya ma dhici karto aniga intaan joogay markii aan ka soo tagay ma aqaan ka hor maaragtay adiga arintaas $16,000 in la taliyaha amniga qaranku qaato oo mushaar ahaan isagu qaato iyo amaankiisa oo dowlad kale ay bixiso maya aniga intaan joogay anaa iska hadli kara moogta aniga intaan joogay la taliyaha amniga qaranka ahaa mushaar ma dhicin ay dad kalena siiyaan okay la taliyaha xafiiska amniga qaranka ee fiila Soomaaliya ilaa dowlad goboleedyada imisa way lacagta la siiyaa ee ka timaad dowladaha way kala duwan tahay number qaybahay kala tahay waxaad ii sheegtay dhaqaale inuu ka baxo dibadda ka yimaado amniga qaranka la xiriira ku magaca ku soo baxa taga ilaa dowlad goboleedka xafiisyada taga mushaaraad loo bixiyo qalab xafiis loo bixiyo waa adigu soo mari jiray dabcan aniga xukuumaddu soo maraa dowladda Soomaaliya soo maraa imisa waa
waa badan yahay hadda exactly ma xasuusto laakiin wuu badan yahay marka Malaayiin? xafiisyo badan malaayiin kumanaan boqolaal ma sanadkii waxa laga yaabaa inay tahay exactly ma xasuusto waqti hore laakiin de waa waxa heli karta xukuumadda saxiixda xafiiska ra'iisul wasaaraha laga saxiixaa waa public document waa google garayn kartaa waxaas oo dhan xafiisyo amni dawlado kale ay dhaqaale ku bixiyaan oo amni Soomaaliya hadana ay ka shaqeeyaan sawir noocay bixinaysaa adiga cabsiyahan marka xafiiska timid oo dhaqaarkiisa dhaqaaliga amniga wax ku saabsan waliba aad u xasaasi marka laga shaqeynayo dawladaha laftikooda saameyn ku yeelanay qofka xafiiska fadhiya ee shaqaalaha ah ee mushaarkiisa ay dawlad hebel bixiso ama qoonda shisheeye laga bixiyo tusaalahan waliba dawlad hebel baad u tahay ayaa mushaarkaaga bixisa xogta uu cid u shaqeynaya ma Soomaaliya noqon kartaa mise dawladii lacagtiisa bixisay noqonayso qaabka loo bixiyay ku xiran tahay qaabka mushaarka loo bixiyo horta hal ugu macnaha budgetka dawladda badana contribution ku bixiya marka qaabka haduu yahay qaab oo adiga ay dawladda toos ku siinayso adigana aniga advisor ii tahay markaas macnaha waan iska ka ilaalinaya ilaalin kale ma jirtee waxaan hadalladaada waan fiirinayaa inay yihiin kuwii safaaradda igula hadlaysay inay yihiin kuwa ka duwan macnaha si cautious aan ku macnaha ma iska ka aaminayo laakiin hadday tahay budget intana la siiyey aan mushaarka annaga saxiixayno taas ma way ka duwan tahay kan dawladda Soomaaliya ee kala duwan ee hadda la adeegsanaya ee amniga qaranka ma sidaas uu shaqeeyaa oo qofka Soomaaliga waxa la xiriirta safaaradda mushaarka siinaysa mise dawladda Soomaaliyeed ayaa contract la gasho oo qofkan dawladda Soomaaliyeed buu shaqeeyaa oo ku sheegay waxa contractiga la gala xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda macnaha annaga taana marka ma aado safaaradda iyo wax la xumay dawladdaas lama xiriiro way jiraan shakhsiyaadka jiraan xogtaas ee lagu kalsoonaan karaa dadka amniga ka shaqeynaya marka sidaas ay dawlad kale mushaarka siinayso ما يدرب ملا وقفك هذا أكتاي ماشي وشقاية دب متر مقت وابد أكتاي مقت حكت أيجنا وأجيهن أنا جنا وأجنا مركا أديك لفتك هذا وحاجة security clearance levels of course وقفك عاد ولدق ميسد معناها أنت حق سينيسد لكن واحد عكرته قفكي قف مدح إنه access وهلا واحد عكرته تاس لكن شخصياتك قاب لو ماريا جرا waxaan kale kugu celinayaa xafiiska la taliyaha erg qofka la taliyaha tusaale Cabdi Saciid 4 sano ku 3 sano in ka badan la taliya soo ahayd marna mushaarka ma qaadan lacagtaas kamid ah ee lagu bixinayo international community ay siiyaan xafiiska la taliyaha amniga qaranka waxa ku sheega aniga waxa waqtiga la magacaabay ilaa waqtiga aan dawladda u shaqeynayo la taliyaha amniga qaranka markaan chief of staff ka ahaa markaan wasiirka ahaa mushaar dawladeed ma ahan dawladda Soomaaliya ma ahan mushaarka lama qaadan cid kale mana dhici karto anoo la taliyaha amniga qaranka inaan ka qaato mushaar cid kale markaas ma iibada laakiin xafiiskaaga maamulaya malaayiin dollar oo ka timid dawladaha oo xafiiskaaga ay galaysaa marka mushaar ahaan adiga laakiin shakhsiyadaada kuma soo caadayso saas miya adoo xafiiska tusaale waxaad ii sheegtay xafiiska in lacag badan timaado dhaqaale badan dawladda Soomaaliya soo saxiixda amniga qaranka la geliyo oo xafiisadan ay marto la taliyaha amniga qarankuna uu markaa barikeeyo maya horta ina fahanto amniga qaranka waxa way xafiisyo tira badan wasaaradda gaashaandhigga kamid wasaaradda amniga gudaha kamid wasaaradda sidaan ku sheegay wasaaradaha way 6 wasaaradood amal way xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiskan raba xafiiska amniga qaranka raba ee madaxweynaha xafiiska amniga qaranka ee madaxweynaha ma jirto mushaar aniga igu saabsan oo ay hay'ado bixiyaan ama ay bixiyaan dad bixiya waa mahadsan tahay markaad timid xafiiskan amniga qaranka ma jiro qorshe diyaarsan oo aad la wareegtay oo amniga qaran ee Soomaaliya ku saabsan
maya waxaan la wareegay waraaq oo shaqaalo ku qoran yihiin shaqaalaha xafiiska nadiifiya marka maxaa shaqaalaha xafiiska nadiifiya shaqaalo oo xafiiskan ka shaqeeya aan ahayn oo nadiifin kaliya ma cid kale ma jirin cid kale oo hadda xasuusta ma jiro I think hal wiil baa jiray oo markaas yaa kala wareegtay adiga xafiiska markaas macnaha Xuseen Macalina ka tagay adiga ninba laakiin Xuseen kale ma wareegin adiga sax adiga kale ma wareegin ninba macnaha ku sima amal ah nin kale hadda markaa wareejinaysay isla intii baad wareejisay adna ninkii iyo dhowrka shaqaale kale ee aad sheegtay aniga xafiis weyn baan wareejiyay sidaan ku sheegay oo isku xiran ilaa dawlad goboleed macnaha xafiiska ra'iisul wasaaraha qayb ka dhisan wasaaradihii qayb ka dhisan dawlad goboleedyadoo dhan ay ku jiraan kuwa markaas macnaha siyaasad ahaan la isjiirsanaa hataa xafiisyadoodii xafiiskeena oo xafiis shaqeeya ah waxaasoo dhan aan wareegay waxaan rabaa intii aad xafiiska timaadday waxaan rabaa aan ku siiyo dhowr daqiiqo oo aad noogu sharaxday aniga dadka Soomaaliyeedba xafiiskan markaad timid sidaas ahaa iyo maalinta ka tagtay wixii shaqo u dhaxeeyay ee aad qabatay waa mahadsantahay xafiiska aniga markaan imid dhowr arrimood baa taagnaa oo degdeg ah oo haddaba aan heli karto macnaha saylashooda oo ay ugu weynayd in la sameeyo qorshaha amniga qaranka la wareegidda amniga qaranka ama waxa loo yaqaan Soomaaliya transition plan waxa aad uga baaqday dawladii hore Xasan Sheekh markuu 16 in la sameeyay lama sameyn dawladda farmaajo way cusbay isla markii waatii London la tagay National Security Architecture la soo saxeeyay dawlad goboleedyada la kulmay ka bacdina isla markiiba qorshahaas waa taagnaa marka arinta the most urgent waa taagnay oo marka aad waxaan uga shaqeynay sidii loo sameyn lahaa Soomaaliya transition plan Soomaalidu leedahay Soomaalidu ka soo shaqeysay ay ku qanacsan yihiin dawladaha Afrikaanka ka qayb qaadanaya amniga Soomaaliya sidoo kale waxaan ka shaqeynay inaan mandate ka bedelno mandate UN Security Council ba maaragtay siisa mandate ka AMISOM inaan mandate ka aan sameyno heer ciidamada Soomaaliya joogo dhan inay noqdaan ciidan in support taageero u ah ciidamada Soomaaliya aan ahayn ayagu kuwa lead karaan marka hawshaas waan ka shaqeynay aad baan ugu guuleysanay April waxaan African Union Peace and Security Council ka present garaynay Somalia Transition Plan waana la endorse garay hukuumadana ka hor March bay endorse garaysay ka bacdina qolyihii finance garaynay macnaha AMISOM oo sida European Union ka ugu weyn tahay ayagana sidoo kale arinta marka arin muhiim ay ahayd waan qabanay arinta kale waxay ahayd ciidamada suga amniga oo isku dhaxyaacsanaaye ciidamada xasilin la dhahay jiray oo xasilinta amniga oo suga amniga waxay isugu jireen ciidamada mas'uuliyad military iyo booliska ciidamada xasilinta sugaya amniga Muqdisho isku hor imaadkooda wuxuu keenay macnaha dhimasho oo shacab oo tiro badan annaga marka baaris baan sameynay guddi baa loo sameeyay baaris la sameeyay waxa la ogaaday Janaayo ilaa March in shacab badan la laayay 26 to be exact macnaha dhowr 26 inay ahayd baan malayna madaxweynuhu markii presentation kala sameeyay aad buu uga naxay waxa la sameeyay 26 kaas waa la raadiyay kulligood magdhow waa la siiyay dadkaas waxaana la joojiyay in macnaha go'aan lagu gaaray markaas ka bacdi in ciidamada xasilinta
ay sugaan amniga marka tala soo jeedinta guddiga ahayd in lagu celiyo ciidamadii isugu jiray amniga oo rule of law loogu talagalay oo ah booliiska nabad sugidana lagu celiyo maxaa la dhahaa sirdoonka shaqadeeda sirdoonka nimanka military-gana loo diro xoreynta magaalooyinka ka baxsan banaanka shaqadaas July 2018 waa golaha wasiirada la geeyay arrintaasna saas ay ku hirgashay hawsha kale oo aan qabanay of course waxa waaye inaan bedelnay luqadda Soomaaliya amniga golaha amaanka UN Security Council macnaha hadda aragto resolutionada Soomaaliya saaran 4 camal waaye laakiin 3 baa waxay yihiin chapter 7 ahaayeen markaas 3 chapter 7 mid walba wuxuu ka bilaabanayaa waxaan aqoonsanahay sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia. Anaga waxaan dhahnay okay hadday saas tahay waa inaad ka dhawaysaan waxa waaye anaga horta chapter 7 uma baahnin Soomaaliya hadday rabto inay dawlad xor noqoto inay chapter 7 saarnaado waa qalad marka mid walba marka waxa la yiri waayahay mid walba goonidiisa aan wala dhigo garayn mid waxa weeye marka waa AMISOM waa tan ku sheegay golaha amaanka waan tagnay waxaan bedelnay luqadii inay ahayd in maaragtay loo bedelo inay taageeraan ciidamada Soomaaliyeed marka awoodda la siiyo ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka si ciidanku ilaa iyaga yaqaana meelihii ayaga jooga inay lead karna lahaadaan saas waaye erayga Somalia transition plan oo ugu salaysan yahay Somalia led inuu yahay Somalia led and Somalia owned buu yahay marka ugu dambeysayna waxaan gaarsiinay heer inaan ka dhigno AMISOM African Union Transition Mission macnaha oo waqti xadidan inay leeyihiin arrinta kale oo waxay weydiisay guulaha laga gaaray waxa waaye hubka iyo rasaasta una qabatayna saarnayd wadanka waa isweydiina sabab waa dawladda Soomaaliya una qabatayna saaranta waxaan sameynay marka baaris ka bacdi iyo dood ka bacdi waxaan ogaanay in mar walba lagu eedeynayo hubkiina waxa laga helaa suuqa hubkiina waa la waxeeyaa waa la gataa ama way fududahay in maaragtay suuqa laga helo marka waxaan sameynay siyaasadda ahayd security reformka oo ciidamada la register gareynay mushaarkooda laga shaqeynayay maxaa la dhahaa inay toos u helaan awal sida xasuusato waxay ahayd ciidanka boorsooyinka taliyaasha ugu qaadi jiray hadday rabaan na siin jiray ama numberkay rabaan sheegan jiray taas way soo afjarmatay waxayna ku soo afjarmatay markii ciidamadoo dhan la register garay sidoo kale hubka waxaan sameynay hubkii rasaasta hubku markuu soo dago waa la xireeyaa kaydka hubka lagu xireeyaa waa la calaamadeeyaa ciidanku xoogga kale xoogga dalka Soomaaliya saas oo kale iyo numberkii askariga marka number buu leeyahay askariga numberkiisa lagu qoraa asaga faraha laga qaadaa meeshaas lacala hadday dhacdo qori in la soo helo qorigii si fudud oo waxa lagu soo heli karaa systemka laga baaraayo then waxay ogolaadeen qolyaha UN Security Council-ka in shaqadaasi ay tahay waana arki kartaa waa public information yani Google garan kartid in Soomaaliya ay waxaan waam la dhaho weapons and ammunition management-geeda ay superb shaqo fiican qabteen oo hubkii rasaas ku saabsan ayadana maaha cidda cunaqabataynta saaran al-shabaab baa loo wareejiyay sababtoo maaha dawladda Soomaaliya cidda threat ku cunaqabataynta ama chapter 7 hadaa maqasho waa threat to peace and security-ga oo regionka ama Soomaaliya dawladda maaha marka waa al-shabaab ama Daesh ayaga waay marka cunaqabataynta in la saaro dawladana u fasaxan tahay waxay rabto inay keenso
sidoo kale waxaan soo afjarnay chapter 7kii oo ku saabsanaa burcadbadeeda oo maaragtay 13 sano Soomaaliya saarnaa in resolution in badda Soomaaliya maraakiibta adduunka oo dhan ay u fasaxan yihiin inay ilaaliyaan burcadbadeed marka annaga dawladda Farmaajo waxay u dacwoon jirtay madaxweynuhuna mar walba uu ka dardaarmi jiray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dibadda from Oman to Japan to India Sri Lanka meel walba marka Tanzania qayb badan marka oo burcadbadeed baa lagu eedeeyay lagu xukumay qaar dhalinyaro ah 15 jir markay la xiray 22 jirsaday markaan baarnay qaar kamida oo macnaha dawladahoodii kala hadalnay waxay leeyihiin annaga doon baan iska saarnay oo maxaa lagu xiray maya waxna lagu eedeeyay inaa burcadbadeed marka waanad aragtay annagoo ka hadlayna golaha Human Rights Council-ka iyo arrimahaas ku saabsan sharci darro waxaa ah in dad Soomaaliyeed la iska afduubo oo wadamo kale lagu xukumo ayadoon cadayn lahayn arrintaas waa ka dagaalanay waxaanan sidoo kale badda Soomaaliya u fasaxnaa wadan walba oo markab leh inuu yimaado oo dhaho waxaan patrol garayna ama ilaalinaya burcadbadeed dadka oo xeebaha ku nool waa ogta aan qaraabaan ku leeyahay markaan la hadalnay xeebaha dadka ku nool waxay noo sheegeen inayna kalluumaysan karin sababtoo ah doontooda saxiimada markay la tagaan markabkii doonaa iska jiiraya ama waaba la afduuban karaa waxay ka baqeen badii inay ka kalluumaystaan waa mahadsan tahay Cabsiid wax badan aan ka sheekaysay su'aalo kala duwan ayaan doonayaa in waxyaabahan dhexdooda ka weydiiyo markaad xafiiska timid 3 maalin ka hor intii aan lagu magacaabin 17 December 2017 Muqdisho waxa ka dhacay fal dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin weerar baa lagu qaaday bixilli hameena guri oo deganaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabshakuur oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida inkastoo uu ka horeeyay haddana maalmihii loo magacaabay 3 maalin kadib lagu magacaabay dhacdada markii 20 bisha maxaad kala falgashay arintaas doorkaagu muxuu noqday maadaama la taliya amni qaran ah ahayd iyadoo dhacdadaas ay cusub tahay shaqadii ugu horeysay ee xafiiska marka aad timidna ee amniga saameynaysa ay ahayd ma ogtahay application-ka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta Baysi waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store